shaygaasoo ma ah al-islaax bayna annaas. ilaahay subxaanahu qur-aankiisa waa ku sheegay saddex waxyaalood oo la yiri waa laga shiri karaa inta kalena wax khayra kuma sugna la yiri ayay ka mid tahay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay aayad ka mid ah suuratu nisaa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruuf aw islaaxin bayna annaas. sadaqadii markii qofkii la yiri waa shayga la isugu imaan karo, waxyaabaha la isugu imaan karo oo shir lagu qaban karo ay ka mid yihiin islaax bayna annaas ayaa lagu soo gabangabeeyey. waxa koowaad aan wax ku bilaabanayna waxay tahay horta al-amru bil ma'ruuf wa nahyu 'anil munkar, inaan ilaahay subxaanahu wixii uu na faray aan qaadano, wixii uu naga reebana inaan ka harno. taqwada dhan oo la sheegayo ayaa waxay isugu imaanaysaa inaad wixii ilaahay ku fara aad qaadato, wixii ilaahay uu ka reebana aad ka hartid. al-amru bil ma'ruuf wa nahyu 'anil munkar taasay isugu imaanaysaa. tan xigtana waxay tahay islaax bayna annaas. waxaa la yiraahday faman ahyaaha fakaannama ahya naasa jamiican. qofkii waxaa la yiraahday naf dila naf nooleeya wuxuu la mid yahay asagoo bulshada dhan iyo xataa xayawaanaadka xataa dhulka jamaadaadka geedaha ku yaal asagoo nooleeyay oo kale. haddii uu haw naf dilana wuxuu la mid yahay asagoo kulli wax alla wixii noole ilaahay abuuray baabi'iyay la mid yahay. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin wixii dhacayba way dhaceen, cafa Allahu camaa salaf, waa la isaga yimid, ilaahay cabsidiisa laga wada qaatay, ayadiina meesha la isugu yimid, ayadiina loo wada fadhiyaa. taasaana wax walbana ay isugu imaanayaan haddaan ilaahay ka wada cabsano. markii in yar oo xataa qalbiga nooga soo dhacda aan astaghfirullah aan iraahno, taas ayaa waxaynu aan ku gaaraynaa inta aan nolosheena ka dhiman. kullay qofku waa iska cumru qaalib, waxa dhan uu nool yahay muddo yar uu nool yahay. haddii 63 sano aad dhaaftid wixii ka dambeeya waa ilaahay fadligiisa ilaahay ku siiyey waaye. haddaad 100 sano noolaatid alxamdulillah ilaahay fadligiisa waaye. haddii aad 30 sano noolaato ilaahay fadligiisa waaye. waa qof walba meeshii ugu talagalay ayay ku tagaysaa. marka wax alla waxa aan samaynayno mar walba aan xasuusnaano walaalkeena muslimka ah xuquuqda uu nagu leeyahay, iyo xataa xayawaanaadka mahadashada ah ee nolol nool, xataa kuwa aanan u jeedin ee dhulka ku dhex nool xuquuqda ay leeyihiin aan dib u xasuusanno. markaasna saan u noolayn lahayn aan insha Allah taala aan ku talagalno. ilaahay subxaanahu wa naga dhigo kuwii cabsida ilaahay isu garabsada, kuwii xumaatada iska qabta, kuwii iswaaniya oo qalbigooda mar walba isla socda ilaahay naga dhigo. waa idinku dheereeyay. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. taakay tolo waxaan ka soo socod bilownay magaalada Dhuusamareeb. waxaan soo marnay Xanan Buuro, waxaan la soo kulannay ciidamadii meesha joogay, gudoomiyihii degmada Xanan Buuro, deegaanka Xanan Buuro, iyo shacabkii joogay intaba waa soo aragnay. wax culaysa oo hadda ay noo sheegeen uma jirinin, wax dhibaato oo hadda ay yiraahdeen waxaas taagan ma aanan arkinin. waxaan ka wada hadalnay annaga iyo ciidanku inay ciidanku joogto ahaado insha Allah taala, oo uusan taginin bisha Ramadaan uu dhamaysanaya insha Allah taala. bacda Ramadaan ama bil ka bacdi wixii laga yeelana insha Allah taala ayadana waa ka tashan doonaa, waana saarki doonaa. annaga socodkanaga ujeedkiisu wuxuu ahaa marka koobaad inaan deegaanada soo marno, wixii naga dambeeyay aan soo ogaano, sida waxay yihiin aan si aan uga warqabno, inaan idin soo booqano, idin nimaadna ujeedkanagu ahaa. wuxuu kaloo ahaa in aan warqadii guddiga amniga iyo bay'ad ilaalinta deegaanka, warqadii amraysay oo dhuxusha joojinaysay, ayadana waa keenay iyadoo saxiixan, iyo xeer dhaqankii guddiga amniga iyo ay lahaayeen maxaan ku sheegaa iyo ilaalinta bay'ada. marka dukumiintigaasna waa wadnay. kii hore inaan akhrino, kan dambe dhiibno, wixii dhiman oo inkaamiyada ka tashano, inaan is aragno sida wax u dhiman yihiin iyo sida wax noogu hagaageen aan iska warsano. ujeedkanaga iyo socodkanagu sidaas ahaa. waxaa nala socda dhalinyaradu waa ujeedaan dhammaan intii hawsha fududayn jirta way joogaan. waxay samaysteen gudoomiyahoodii jooga Cabdi Samad waa gudoomiyaha guddiga.
waxaan rabnaa marka in asagana isbarataan gudoomiyaha ku soo dhawaada deegaanka warbixintiisa nasiya sida aad wax u aragteen iyo sida wax u jiraan iyo waxa dareensantiin iyo waxa aad rabtaan iyo waxa mustaqbalka aad damacsantiin iyo waxa ciidan ka damacsantiin iyo guddiga amniga sida uu idin leeyahay iyo shaqada shaqayntiina dhammaan warbixin kooban aan idinka rabnaa soo dhawaada waa mahadsantiin deegaankaas kale dhalinyarada isabaabashay iyo gudoomiyaha guddiga iyo dhammaan culumadiinka iyo qiyaarta dhammaan meesha isugu timid waa salaamaynaa 14 salaamullaahi alayka salaam bacdeed walaalayaal horta wax dhiba lama aanan kulmin sidaad nooga aan u kala tagnay arada nabadgelyo bay ahayd caqabad waxaan ugu ahaa bahashii dhuxusha ahayd oo noo fududeeya aan idan lahayn sida kale dadkii waa isdhex marayaan ummadii waa isku dhex guuraysaa wax dhibihi ma jiraan qore lala soo baxay ma aanan arag aad iyo aad ba arintu u wanaagsan tahay ilaahay ha noo siyaadiyo halkaas inaan arinta kasii wadan doono ila tahay wixii noo dhimana aan dhamaystiri doono anagu sidaas un baan hadda ku joognaa meesha Rahmaan Rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam dhalinyarada noo timid iyo gudoomiyahooda waa salaaman yihiin way salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam kulli waa tii la waday waayahan nabadda iyo mataqaana qaababkeeda muddo dhexe waa tii arintaas xafladii la dhigay dibadeedna waa tii mataqaana la kala shaqo tagay sidii loo kala tagay nabadii mataqaana waxaad moodaa dadku way qaateen si fiican in arintaas u shaqaynaysay wax dhiba oo la yiraahdo mataqaana arintii lagu ballamay way ka soo laabteen ma aynaan arag sidii loogu talagalay oo mataqaana dadkii ay mataqaana loogu ballamay oo loo qaatay ay arintaas ku socotaa ilaahayna waan ugu shukrinaa alxamdulillaah rabbil aalamiin haddana insha Allah taala sidii bay noogu sii soconaysaa meeshiina waa laga sii wadahayaa insha Allah waxa dhibkan nagu haya oo markaan mataqaana aan dareemayno oo dhibkan ugu badan nagu haya waxa weeye baasha la yiraahdo dhuxusha way baashaasi horna wayno dhibi jirta haddana waxaad ba moodaaba markii dadkii arintaas ay fursad bay u heleen dadkii mataqaan ka shaqayn jiray inay fursad khaas ay u heleen oo mataqaana shaqadeedii ay sii badiyeen oo maalmahan hadda dhowrkii maalmo usbuucan gudihiisa maalin daily dhowr baabuur ba halkan maraysa oo socota baashaas waxaan rabnaa haddii ilaahay ka dhigo haddaan dadka deegaanka ku nool sida ugu dhaqsiya badan in wax looga qabto oo maamulka iyo dhalinyarada iyo dadweynaha wax alla wixii wax ka qaban kareen arinta ay xil weyn iska saaraan sidii aad nooga tagteen oo meeshan isugu nabadda xaggeeda marka la yiraahdo wax wanaaga maahan wax xumaana ma annaan maqal mana annaan arag dadku waa isdhex marahaya wax xumaantaahuna degdegeedu aad baa dadku isu gaarsiiya wax wanaaga maahan wax xumaana ma annaan maqal mana annaan arag waxa soo haray bahashan dhuxusha ah horta dalka dhibaatada ku jirta haday tahay dhirgoynta iyo haday ummadda dhexdeeda dhibaatada ku jirta ay tahay isdilka iyo nisnacaybka annagu sidaan u garanayna bahashaas ba ugu badan shalay geedahan harsanay quraacdan bay shalay doon la harsanaysa markii la keenay shalay markay afurku ahayd ka caraabeen waxa weeye waxaan idin leenahay dhalinyaroy maamulow islaamow bahashaas sidii wax looga qaban karo ayadoo rabbi lala kaashanayo ragna u dhaqaaqayo hal qabto hal loo dadaalo ummadda dhibkeeda wax ugu daran waa bahashaas dhirtu xataa goynteeda habaarka ka imaanaya wax ummadda isku dirahaya way dhirtii qiiqa lagu shiday geedihii waa baabeenahaya waa nadaab goorinahaya cayayaanka ku heshira waa habaartamahaya hadda meel lagu dhow bay ka shidanta oo saacad xabada ah ka dhawaaqeeda laga maqlahay intaasaan idin sheegayna waxaan ognahay waa nabadda fiicnaanteeda iyo dadkii sukeeyaha ahay wixii ku dhex jiray annagu ma annaan arag waxna kama annaan tuhmin
laakiin bahashaasaa dhibkeedu taagan yahay waa taagan yahay dadka xoolaha ku dhex ilaashanaya dadkii xoolaha lahaa weeye dadka rubadda isku dhifanaya meel kale kama imaan bad ma lahan beer ma lahan xoolahoodu waa dad baabiinaya weeye sidaasaan idin sheegaynaa annaga waxba sii badan maayo raggaas intayna yiraahdeen aannimayo inan ere bahasha carqaladda annagu si walbaan wax u fiirinaynay dadkii waa isdhex maray si wanaagsan oo naxariis iyo arwaax lahu isu dhex maray waa ilaahay baan uga shukrinay taasi waa halkaas bahasha maanta na dhibaysa oo saakay markii aan hadda inaan aragna ka hor aan ka walaacsanayn oo dhaqaaqyadeeda ay nagu soo kordhiyeen waa bahashaas sida kalena arrintu waa u wanaagsan tahay bahasha waxqabadkeedaan annagu u baahannahay dadkii waa iswacayaan way isteleefoonayaan way isu imaanayaan geeliyay ishaybsanayaan arigay ishaybsanayaan meel walba waa wada joogaan baabuurtii waa wada raaceen wax ilaahay lagu mahadiyo weeye ilaahay baan uga xamdinaynaa wixii ka shaqeeyana ilaahay ajar ka siiyo taas waa inta labaysa wax laga naxo haba yaraatee ma aanan maqal oo nabad dhib ku ah oo ama qof u geystay ama dhowr qofood geysatay dad badan u geystay ama dad yar u geystay ama la arkay ama la maqlay qof annaga kamid usuma aanan sheegin alxamdulillaah waxa la lagu mahadiyo weeye waxa weeye inta ku daraynaa waxa noo sheegay ninka la yiraahdo Abaas inaad waraaq ka soo saxiixdeen dhuxusha iyo dhuldiidka birinta sidoo birintoo kale waan ka gudoomaynaa waxa aad soo target gareedoona soo qorteen maamulka dawladda ka soo saxiixdeena waa idin la wadaynaa waa idin kala shaqeynaynaa waad ka soo saxiixdeen aadan ugu hambalyeynaa waana ka gudoomaynaa waraaqada waa reebaynaa dadka shakhsi iyo meel walba waa dhigaynaa ku soo dhaweynaynaa inta waan ka gudoonay waxa weeye ku sii darayaa kisto inaad ku saayidisaan annaga dadka xoogaa kale oo nala degan haddii annagu hadda aad amar ka soo saartaan ama annagu aan wixii gaarsiin karna aan gaarsiino dad waxaa jira aad noogu oo dhow oo dhulka ku degan oo dhuxusha ka shaqeeyo aad u duugo ama gaadiidkoodu qaado ama iyagu duug ka shaqeeyo waxa laga maarmaan ilaa ah dadkaas hadda qalan qaloo nagu dhow qayb baa joogta deegaamadu waa nagu dhow yihiin inaad ogaataan waad taas ku taxalujisaan diyaar aad ila fiicanta waa soo jeedinaya waxaan kaloo soo jeedinayaa hadda waqti Ramadaan baa lagu jira dadku waana soo shaqeeyo aad ugu waqti la soo maray xaflad xoogaa intan ka balaaran oo dadka xafladii dhigay hore ka saacidana in xoogaa mujtamaca kale la sameeyana aad ila qumanaa dadka la awoodi waayaan cusri male waa iska caadi waxaan kaloo ku darayaa deegaanka la dego waxa hadda adan naga dambeeya sida balahowd oo kale waxay soo jeediyeen waxyaaro dhulka nabaad guur ku ah qaybna nolol uga ah waa xagga barkada oo kale dhul ay hadda ka joojiyeen jir iyo bacda taasna in mar loo laabto aniga ila qumanaa waxaan u maleynaa hawshan waxaan bilownay baxoogeeda hadda maanta bishii waa 1 bishii hore 6deedii ayaan bilownaa waxa la waday 25 bari ama 26 bari hawsha dhan waa dareemi kartaa waqtigaas waqti badan ma inta muurtaan soo jirtay iyo waqtigaas markii la soo barbar dhigo waqtigu waa waqti yar hadda waxa badan aan ka gudubnay waa dadkii way is aamineen way is dhex marayaan qof walba maanta meesha uu tagi karaa maalmo yar ka horna anagoo wada shaqeynayna waxaan u baahnayn in ciidan amni inta wacano dadkii la isu geeyo saasoo tahay wax badan waxa sii dhima waxa na horyaala oo nabadda dhameystirkeeda iyo taabagelinteeda u baahan waa isu dardaarmaynaa bay'ada iyo deegaanka haddaan la dhawrin nolol ma jirayso maanta maxaa u maleynaa geedka aan hoos harsanayno haddii la jaray 20 kiisho dhuxul laga sameeyo nacfiga maanta uu nooleeyahay iyo 20 kaas kiis nacfiga ay leedahay qof kasta oo naga mid waa dareemi karaa waxna waa waxaan qaban karnaa waxna waa waxaan la kaashanayna maamulka deegaanka ka jira bay'ada iyo deegaanka in la dhawro waxaan la kaashanayna maamulka waxyaabaha aan qaban karnaa waxa kamida dadka in la gaarsiiyo bay'ada in la dhawro waxyaabaha waa iska warqabnaaho dadka waa dad wada dhasho isqaanay dhibaatadu ka yimaado sida birinta sida meelaha dhalinyaradu isugu timaado waxyaabaha soo dhan wacyigelintooda qof walba ayaa naftiisa wakiil uga ah qof laga sugayaa ma jiraan haddii qof kasta oo naga midahu midnimada iyo nabadda uu istaago iyo horumarka wax qof lagu haleynaayo iyo wax gudi laga dhawraayo midna ma xanan buuraan maanta tagnay waxa jooga ciidan amni inkastoo ciidanka amnigu diriis dawladeed iyo qalab dawladeed ay wataan haddana waxay noo sheegeen dhibaato badan meesha inay ku hayso waxa laga yaabaa barkana inuu isleeyahay waa ciidan dawladeed ayaguna isleeyihiin deegaanka aad ka shaqeynayseen war ma leeyahay ka saacido oo leeyahay ka gacan qabto
xanan buurana waan u soo sheegno hadda wax kale ma idin dirayno laakiin 14 bari oo ramadaan ka dhiman hadii ilaahay idmo in intii la awoodo ari loo aruuriyo ninkaas loo geeyo intii wixii loo helo ama 5 loo helo ama 6 loo ama 7 loo helo ama 10 neef loo helo waa isu dardaarmayna xanan buurana u soo sheegnay deegamada kale oo sii marayna waa u soo sheegnay hadii ilaahay idmo waxa jira marka hadii ilaahay idmo ramadaan markii laga baxo waxyaabo badan aan hor yaala intaas aan isu sheegnay oo nolosha iyo deegaanka iyo horumarka qusaysaaho waxaan rabnaa dad badan oo noo imaanaya inagu waa in iska kaashano xilligaas in la bilaabo laakiin ramadaan inta ka horeyda waxaan ka shaqaynaynaa amniga iyo isdhexgalka bulshada inaan sii wadno iyo bay'ada sidii loo dhowri lahaa hadii ilaahay idmo maalinta ramadaan dhamaadana dad badan ayaa waxay ku ballansan yihiin oo deegaanka u dhashay inay yimaadaan aniga shalan muqdisho ka imid xalaq dad badan oo deegaanka u dhashay waxay quudareynayaan oo xamarona xiga jooga iyo ka kor maalinta ramadaan laga baxo deegaanka in la isugu yimaado hadii ilaahay idmo markaasna waxyaabaha dadka hor yaalaahu amniga kaliya ma ahane waa sidii horumarka iyo noloshii deegaamada looga qayb qaadan lahaa waxaan isu dardaarmaynaa hadii ilaahay idmo ramadaanka ilaahay hanoo dambi dhaafo midnimada iyo nabadana ilaahay hanoo sii daa'im yeelo in alla inta ka shaqaysana ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuu ugu dambi dhaafo oo fududeeyo intanada kalena ilaahay nagu soo dhow inaan qaadano wanaaga marka loo sheego dadka qaata ilaahay wuu amaano ikhyaaray war wixii la dhihi waa la yiri intaas ku soo gabagabaynaynaa qoladaas amniga oo aan ka hadii alla idmo ka qayb qaadano iyo waxyaabaha hor yaalan sii wadno iyo ramadaan ka bacdi oo ballansanahay hadii ilaahay idmo sida aad ogtiinba waxaan isugu ballansanayn qodob daba taagnaa xiriirna la lahaa go'aamadii tolka uu qaatay ee amniga iyo isdhexgalka bulshada qodobkaas oo ahaa ilaalinta dhirta iyo bay'ada in sharci tolku ka soo saaro deegaamada ay degaan odayaashu soo saxiixaan maamulka jooga deegaanka lala kaashado oo loo geeyo guddiga amniga iyo ilaalinta deegaankana nuqul loo keeno ayaan ku ballansanayn iyo sidoo kale inaan idin soo diyaarino guddigiina xeer hoosaadkoodii iyo waajibaadkoodii shaqo inaan ayadana soo qorno iyadoo qoraal la idin keeno intaan wadnaa insha Allah runteena dhirtu waa wax xasaasi ah oo deegaan walbaaba hadba dhirtiisa iyo daaqtiisa intuu yahay ayaa badbaadadiisa iyo anfacadiisu tahay ayaa noloshiisu tahay haddaan dhir jirin xooluhu ma jirayaan haddaan xoolo jirna dadku ma jirayaan waa isku tiirsan yihiin iyadana go'aana laga gaaray insha Allah go'aankaas tolku ay gaareen waxaa saxiixay odayaasha dhaqanka iyo bararka ee gudoonkooda sare oo ugu horeeyo maxamuud muuse maalin iyo nabadoon xaashi cabdi xasan iyo nabadoon axmed nuur xaashi guutaale saddexdoodaas la saxiixay marka waxaan rabaa inaan idin akhriyo qodobadii la soo saaray waxaad ogaanaysaan qodobada dadka deegaanka degan ee ugu badan hadii laga dhigay oo laga anfiyay oo laga mamnuucay oo ay dil iyo ku mutanayaan dhibaato dadka doolka ku yimaada waxba kama aha ayagay raacayaan ay ku khayr yihiin iyo cid walba oo isku dayda waxa qofkii deganaa laga jajuubo laga gacmo xiray inuu fushto ma dhacayso marka taas uga dawaabaysaan waraaqahana insha Allah nuqulkoodii xildhibaanadii beesha loo dhiibay ayaga dawladda dhex geynaya ee damul goboleedka oo ka bacdina shaqo degdeg ah ayaa ciidanku howlgal la soo amri doona insha Allah laakiin nuqulka deegaanka geeno baan soo hormarinay waraaqda go'aamadeedan akhrinaya ku socota dawlad goboleedka galmudug og xildhibaanada beesha yararka ee maamulka galmudug og ujeedo go'aanka gaarista go'aanka beesha yabar dhowrka ee dhirta iyo daaqa kadib markii aan u howlgalnay nabadeynta dadka aan wakiilka uga nahay dhanka dhaqanka kadib markii aan ogaanay in deegaanada ay degaan yihiin iyo kuwa ay la degan yihiin qabaa'ilka kale ay ku jiraan halis dhanka nolosha ah ayaan waxaan uga cabanaynaa madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka galmudug qodobada soo socda
xaalufinta dhirta iyo daaqa. 2 berrin kala qabsashada ama berrin kala xira calaamaysiga. sidaas darteed annaga oo ah odayaasha dhaqanka beesha Yabar Dhowrakace waxaan ka codsanaynaa madaxda dowlad goboleedka inay si degdeg ah loo daba qabto udub dhexaadka nolosha iyo dhaqaalaha bulshada oo ah dhirta iyo daaqa. haddaba waxaan mar kale ka codsanaynaa dowlad goboleedka in il gaar ah lagu fiiriyo badbaadinta nolosha bulshada aan soo sheegnay oo muddo dhowr sano ah la itaal darneed abaaro isdaba joog ah iyo colaado sokeeye. deegaanada ay qusayso waraaqdan waxaa mamnuuc ka ah xaalufinta deegaanka. waxay qusaysaa deegaan kasta oo ay gaar u degaan beesha Yabar Dhowrakace iyo kuwa lala degaba fiiro gaar ah maadaama aan horay ugu soo samaynay deegaanka ay beeshu degto iyo kuwa lala degan intaba. guddi la shaqeeya dowlad goboleedka iyo ciidamada ammaanka dhanka nabadda iyo badbaadada dhirta maadaama aan horay u soo saxiixnay wax kasta oo ku saabsan dhanka ilaalinta nabadda deegaanka. waxaan ku adkaynaynaa xafiisyada ay qusayso waraaqdani inay yihiin hudur ama waras dhiigga iyo agabka uu u adeegsanayo arrintaas qof kasta oo ku abtirsada beesha Yabar Dhowrakace ee kula dagaalama ciidanka ammaanka xaalufinta deegaanka iyo calaamadaysiga berinta. digniin waxaan u sheegaynaa qof kasta oo u dhashay beesha Yabar Dhowrakace inuu u turo naftiisa iyo hantidiisa oo uu ka fogaado faldambiyeedyadan aan soo sheegnay isla markaana noloshiisa uu ka raadsado meel aan dhirta ahayn. codsi maadaama ay dowladdu u taagan tahay horumarinta bulshada iyo ilaalinta ummadda annagana aan ka samaynay deegaanada aan soo sheegnay guddi 21 xubnood ah oo kala shaqeeya dowlad goboleedka ilaalinta ammaanka iyo deegaanka. maadaama qof kasta oo loo xil saaro howlaha danta guud oo u baahan yahay inuu helo agab uu ku shaqeeyo iyo dhiirigelin si ay ugu fududaato gudashada waajibaadkooda loo xil saaray ayaan waxaan ka codsanaynaa madaxda dowlad goboleedka Galmudug in guddigaas laga taageero dhanka agabka shaqadooda iyo dhanka noloshaba. waxaan rajaynaynaa inaad tixgelin doontaan isla markaana naga aqbali doontaan codsigeenna. mahadsanidin saxiixayaasha Maxamuud Muuse Maalin, nabadoon Xaashi Cabdi Xasan, nabadoon Axmed Nuur Xaashi Guutaale. xirasaadka guddigu wuxuu ka kooban yahay 21 xubnood oo laga soo xulay dhammaan deegaanada ay Yabar Dhowrakace degto iyo kuwa lala degan yahayba. waajibaadka guddiga 1 taabagelinta amniga iyo ilaalinta dhirta iyo daaqa guud ahaan deegaanada ay degto beesha Yabar Dhowrakace. 2 sidoo kale la shaqaynta ciidamada amniga iyo maamulka dowlad goboleedka Galmudug ee heer degmo. 3 in guddigu uu yeesho iska warqab joogto ah oo aan waqti gaar ah lahayn maalinlana ah. 4 in guddigu uu report ama warbixin subaxle ah uu siiyo saraakiisha amniga iyo maamulka degmada. 5 in guddigu uu si joogto ah kormeer ugu sameeyo dhammaan deegaanada beeshu degto. 6 in guddigu kulan yeesho 15 beriba mar 3 bilood oo hore. 7 in guddigu kulmo
bishiiba hal mar 6 bilood oo hore si ay u kala qaataan xogta guud ee shaqadooda 8 xalinta khilaafyada yaryar ee bulshada deegaanada beeshu degto kala dhexdhaca 9 abaabulka iyo joogtaynta allabariga sanadlaha ah ee beesha yar dhowrkace magacyada guddiga Salaad Cali Cawaale gudoomiye dhama waajibaadkiisa shaqo wuxuu noqonayaa dhammaan inta ay degto yar dhowrkace علي داهر سودي وحكاياه جدّجة واجبات كيسو والله مد لمان دجامة دنا حلقة سارية هاي سعيد حاشي داهر حكاينتا وسجل لمد لمان دجانا دنا إنه كور قبه عبد عيسى يوسف أفيانكا سجنا والله مد لمان دجانا دنا إنه كور قبه عبد السياد يوسف وحبين دجان كعيد كأيو جاروة على صور سما برا دجان كعيد ك علي السياد راجع دجان كعيد ك اسمان عبدي محمد ديغان كعيدك علم حرس السياد ديغان كعيدك عبد القادر يوسف راجد ديغان كعيدك حسين حسن ورسمه ديغان كعيدك عبد الناصر عبد الله مالن ديغان كدغخه محمود شرف فرح ديغان كدغخ علي فرح احمد جبريل ديغان كدغخه داهر محمود عيو دوحه وقوي بري أحمد سمتر فرح دوحة وقوي بري حسن محمود مجن ديجان كبري قورجة محمود عبد الله عرال ديجان كبري قورجة داهر عمر أحمد مريرجور يا أجده داهر عمر أحمد مريرجور يا أجده دران أحمد نور فرح مريرجور يا أجده حرس آذن مالين ديجان ككونفورات guddigan wuxuu mas'uul ka yahay inuu dawlad goboleedka kala shaqeeyo arrimaha amniga iyo dhawrista dhirta iyo daaqa beeda ee deegaanada ay degto ama lala dego beesha kor ku xusan maadsanidin waxa kale oo halkan idinku astaysan dhammaan 12 xubnood ee guddiga taleefanadooda si xubin walba oo idin kamid ah idinku fulaato iswicitaanka iyo xiriirkiina ay idinku fududaato insha Allah isdhexgalka iyo waxa la wixii dhib keeni kara soo celi kara lagana foojignaada lagana shaqeeyo lagana hortago dadkana dhammaan qof walba oo asagu inta isu xilqaama barnaamijku u istaago dhibku waa ka warqabnaaho deegaanka hadda waa la dego waxa la rabaa in horumar laga shaqeeyo birinta dhibku ka imaan kara meelaha la isugu yimaado dhan la rabaa in laga shaqeeyo daaqsintu ka imaan kara wax walba nimay waa ogtihiin dhibkaanu muddada uu jiro intay la eg tahay haddana inta la shaqeynayo waa ogtihiin waa 26 bari miya waxa laga yaabaa siyaabo badan oo jira haddaan la foojignaan wax walba suurtagala waxaan maleynaa maalintii dhibkaanu dhacay 2013 dineed u maleynaa bishii 8 maalintii qalan aan joognay ilaahay naguma soo celiyo ilaahay waxa weydiisanaa intii hore nooga kaado guusha la gaaray nabadgelyada ilaahay na siiyay iyo wixii bil ka hor sidii la ahaana waxba isaga sheegi mayno qof walba dadkii waa qurxoonaadeen oo waa degeeno ma ogtahay waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin raga gogoshiisu waa nabad yiraahdeen haddaan nabadgelyo la helin qofka nolol kasta oo la siiyo wax ma ku tarayso waa ka ogtiin qoriga in la sidaa dhibka ay leedahay in la dhunto dhibka ay leedahay in meel inta la isugu yimaado dadkii naf isku amni isku la soo caran in la isugu yimaado dhibka leedahay in inta dadku mujtamac isu yimaado horumarka iyo laga shaqeeyo macaashka ay leedahay la ogyahay maanta internetan oo qof ka baqa aan la arag haddaan inta isu nimaana siyaas maanta aan isugu nimid aan danaha naga iyo horumarka naga iyo mustaqbalka naga ka sheekaysano macaashka leedahay waa la ogyahay ilmaha jooga waxbarasho loo rabaa dadka waaweyn waxbarasho raba kaabayaasha nolosha la rabaa qof walba oo naga mid ah waxa anfacayso amniga siyaas daradeed aan ilaalino aan ka shaqeyno taas is dardaarmayna waxa kale oo rag odayaasha deegaanka idinka aan niman yahow ciidanka amniga oo aragteen oo qof walba oo maantay wax uu ka shaqeey arka uu wacaayo niman yahow maanta waan soo aragnay culays badan jira wax tira badan oo kale ma qaban kartaan waxaan rabnaa neef ariya hadii la awoodo nimankaas in la soo xilqaamo waa 15 bari waxa dhiman hadii ilaahayno 15 bari wax la neef afur hadaan u helno ama laba neef ay wuxuuda ku badsadaan hadaan u helno falilah alxamdu baad afurna deegaamada kale oo dhan waa soo gaarsiin kuwa hadda noo dhiman waa gaarsiinayna hadii ilaahayno
waxaan isu dardaarmaynaa haddii ilaahay idmo shaqadaas guddigii inaan lagu hadlayn guddigu way u taagan yihiin qof walba naga midna u taagan yahay waxa hadda aan ka sheekeynayo oo la wada arkay nabadda iyo dhibaatooyinka iyo fidnooyinka waa la ogyahay xadiis baana wuxuu ahaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaa nasilatul balaa ya'mu salih wa dal haddii balayadu soo degato midka wanaagsan oo sheekha ah oo masaajidka ku jira oo kitaabka akhrisanaya iyo midka balaayada ah intaba way asiibaysaa waxa weeye walaalayaal oo idin sheegaya waxa hadda gaar idin sheegi ma intaanu hadda boqolkiiba 90 horta way idin salaamaya dhammaan dadkiina dhalinyarada iyo culimada iyo mashaayikda iyo waxgaradka waad mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa xaaladaas hadda ka horna waan soo dhaweynay boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa farxadda ugu fiican hadda boholaan tagay ololaan tagay aagaan oo dhan dad fara badan oo maaragtay qaabkan hadda nimankan abtiyaal ah oo culimo ah oo dhalinyaro hadda saacadaan ka soo tagay oon isku bururnay soo dhaweynay oo farxad wanaagsan oo la yiri mid kasta oo ka qaamaynayo leeyahay ilaahu waa noo celin arintii ilaahu noo celin arintii ilaahu noo celin ay leeyihiin wa alxamdulillah ma sha Allah raggiina hadda ka shaqeeyo kulli raggiina khayr lahan si raggi awal ka shaqeyn jiray raggi awal kan shaqeyn kulli hada waxa weeye sida maaragtay culimada iyo magaciisi waad mahadsantihiin waana ka shaqeynaysaan insha Allah ta'ala wixii hadda jirjiro oo guryaha ku jira cadiifad ku jira ama dad magaciisiya way jiraan laakiin anigu hadda ma arag xaqiiqatan aan arag waa iska dhamaanaysaa mid kasta wuxuu leeyahay waa kan daawanaya abti adeer sodo sid dadku waa sidee moogta dadku waa sidee way qofkii rixin dila oo qof rixim ah dila la yadkhulu aljanna buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam rixin qofkii dila janna ma galahay hadeer ka hor wixii dhacay Allah naga soo arooriyo anu xaqiiqatan way ogyihiin hadda raggaan oo dhan hadda Ali Saciid kulli Shanweyne iyo magaciisi qonarshay rag oo dhan waa rag magaalada hadda afar maalmood ma ogaano magaalada hadba inta tagaan soo orda kitaaban ku tixnaa xogaa waxaan sana bariha maalinkii la arko waqtigii la arko hadda xalay ugu dambeeyay 10,000 oo salihan akhriya markii la markaas maxaa ira ilaahow abi hooyo hadda iga diray aniga moogta dadka aniga ila mid ma وانا علمت ilaahow nabadgeli sharaf karaamo hatta aqbaro ayaa iska jira aan dib dambe ragga ugu shoogi doono waxa weeye waad mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaynaa wax allaala wixii wada shaqeynahan yeelan doona hadda ayaan dhawood meelahan anoo jooga oo dugsi inta wadaadkii dhigi jiray u yaryareen quraan aan nin waxa arkay saa soo gambanahay raggana waa u sheegay oo qori saa markaas wiilasha ardada hadda way jooga ila barkat sheekh mar alla marka dugsiga ilaahay qofkii ilaahay dilaana waa dhimana laakiin qof aan ilaahay dilayn dhamna an hasbunallahu wa ni'mal wakiil ta quraan akhri asoo madax qam ka siista waana la yaqaana oo saa u laxad bas ilaahay uga badbaadi anu hadda rag badan waxa jira dadkan oo qoona shaqeynaya rag badan oo shaqeynaya midkii qori qaata midkii cadiifad wada midkii dib wada waa sheegi doona hadii ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً وحنا مهذا علينا يا الله سبحانه وتعالى لما كان نبدأ عن هاي السنة مانتا وديجانا دي كم وقتها وساك قف أباهن واردية أو سنشرين قف الباب مال الله ماشى أو كبقشر أو مرية الله نبدأ عن مكانية مركب كوباد مهذا أسقناتي الحمد لله marka labaad waxaan u mahad celinayaa dadkii nabadaas ka shaqeeyay oo qaybo kala duwan leh oo dhalinyaradii ay ugu horeeyaan isku xilqaamay wax alla wixii nabadaas ku xirma oo ninka la yiraahdo wixii nabadaas ku xiran oo adkaada inay furaan dhalinyaradii isku xilqaamay aan marka koobaad hadana aan u mahad celinayaa marka labaad dhammaan hadana waxaan u mahad celinayaa odayaashii nagala qayb qaatay hawshaas ciidamadii amniga in alla intii ka qayb qaatay dadkii dariska ahay oo noo soo gurmaday waxaan kale u mahad celinayaa qurba joogtii nagala qayb qaatay hawshaas
oo in badan isku dhigeen inay hawshaas ka qayb qaataanna waa u mahad celinayaa waxaan kaloo u sheegayaa in alla intii ama maqalkeennu gaaray iyo muuqaalkeenna nabaddaas inay noo hirgashay maantana meesha aan joognaana waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa dareemo qoryo waxay u dhaxaysaa bohol sangooye olol intaas u dhaxaysaa waxaa la yidhahdaa dareemo qoryaa la yidhaahdaa saakay waxaan socod ka soo bilownay annagoo wax hubaho bastooladna allah ka dhigay aan wadan aan waxaan socod ka soo bilownay Dhuusamareeb waxaan soo marnay Xaran Buuro waxaan soo marnay meel la yiraahdo Sabeelo Gowrac waxaan soo marnay Laaban Raqas meel la yiraahdo waxaan soo marnay Olol waxaan soo marnay Qalaanqalle waxaan soo marnay Sangooye haddana waxaan taaganaa meel la yiraahdo Dareemo Qoryo waxaan rabnaa inaan sii marno Bohol Balabirre Duduma Cadde intaas inaan sii marnona waan rabnaa insha Allah taala inta afarka ka dhimanna shaqadaas waa sii wadi doonaa ilaaha ku mahadsan haddii nabad la'aan baalka sheeg wixii hore oo lagu jiri jiray haddii ay maanta jiraanna hal meel oo kamid ah ma aanan marnay ilaaha ku mahadsan bacdigina waxa ku mahadsan dadkii ka shaqeeyay maanta meeshay mare meeshii oo ninka geela ku heesay yiri baarka ka baxay bilaash maahana waa rag boqolkiis ay maanta mare ilaahay waa nagu guuleeyay ku soo dhawaada runtii maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin dhamaystirkooda oo yahay mid muuqaal wanaagsan leh waxaad ogtihiin 6 bishii May ayaan hawshan bilawnay maalintaas waa dareemaysaan socodkeena sida uu ahaa waxaana la socday ciidamo amniya naga keenay deegaankii aan ka nimid oo hawsha ka bilawnay nageeyo meeshii aan u soconay maantana waad u jeedaan waxaan joognaa 1 bishii 6 runtii waxaan soconnaa kaligeen waxaan soo baxna saakay 6 subaxnimo waxaan soo marna deegaano badan oo runtii nabadii ififaalaheeda iyo wanaageeda iyo isdhexgalkeeda iyo ismarxabaynka dhex muuqata bulshadii shalay kala taagneed oo runtii aan ugu wada tagnay ayakoo isku majlis isku meel isku deegaan isku bitooyin iyo meelihii maaragtay dadku ay joogeen markii hore xoolahooda la wada jooga ismarxabaynaya ayaa saakoo dhan ku dhex jirnay alxamdulillaah wanaag ayaan uga tagna markii hore wanaagna waan ugu soo laabanay ilaah baa mahadda iska leh runtii waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii arrintan ka qayb qaatay oo runtii soo gaarsiiya meeshan wanaagsan ay marayso hadday tahay maamul ciidamadii amniga oo runtii qayb weyn ka qaatay odayaashii ugaaska deegaanadii kale oo noo yimid oo runtii si wanaagsan oo ay ku jirto ka gacaltooyo noo caawiyay waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin mirihii iyo juhdigii aad bixinayseenna waa midka maanta muuqda oo aad u jeedaan meesha uu marayo runtii waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin mahadu hayn ka gaadho waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadkii dhinaca uga qayb qaatay jaaliyadii iyo dadkii xiriirka wanaagsan la sameynayay oo runtii ayaga laftigoodu qayb wanaagsan ka qaadanayay waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inta dhiman oo aad ogtihiin adinka laftigeenu oo maaragtay aad nala wadaagaysiin inaad dhammaystirtaanna waa rajaynaynaa insha Allah oo caqabadaha yararka ah oo jira oo aan leenahay wax kale ma ahan dhinaca dhaqaalaha u badan iyo dadkii maaragtay agoonta ahaa inaad maaragtay arrintaas aad xalkeeda aad wax ka qayb weyn ka qaadataan ilaahay baana maaragtay inka amaal marin doona dhammaan waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa maalin nabadeed waa maalin kamid ah maalmaha noogu farxadda badan ee na soo maray waxaan leenahay soo dhawaada ilaahay baa mahad iska leh maantay aan ku marayno nabadda ka jirta wadankan oo ilaahayna siiyay iyo dhibaatadii naga haysa jirtay sida aad marka koobaad waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay nabaddan aan maanta ku taagannahay balli kamid ah ballida Dareemo Qoryo taas oo ka soo bilaabatay markooda aan ugu mahad celinayo ugaas Kacayr ugaas Xasan aad ayaan ugu mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa Sheekh Maxamed Shaakir oo suurto galiyay inuu odayaashii iska soo horjeedi jiray qol kaligiis oo 4 mitir oo ku xiro markii saddexaad waxaan u mahad celinayaa
dhalinyarada taagan meeshaan ee yabar dhowra kace ee kaalin weyn ka qaadatay marka afraad waxaan u mahad celinayaa taliye Gasaawe iyo taliye Shariif Dheere oo ah ciidankii nooga soo gurmaday cadaado kalena dhaxgalay dadkii walaalaha ahay ee isku xabaday jiray oo aad u jeedaan berinka aan taaganahay maanta naqa ku yaala berinkan oo ah berin markii la dago xoolo ay naqa daaqi jireen laakiin aad u jeedaan colaadii awgeed in inta naqi wax daaqa la waayo qof kasta meel u carartay maanta naqa ku yaala aan wax loo bardhigi karin oo yahay aad ayaan ugu mahad celinayaa intaas kadib waxaan soo dhaweeyaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Ilaahay oo nabadana siiyay maanta aan ku taaganahay meeshan waxaan u mahad celinayaa qurba joogta waxa waaye walaalaheena oo ka qayb qaadatay 100% waxyaabihii iyo dadaaladii ka jiray deegaanadan dadka walaalaha isku dagaaleen waan maanta nabad ku haysano waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan ciidamada Galmudug oo nabadan ka qayb qaatay Ilaahay ma mahad iskale qurba joogta waxaan leeyahay ku farxa annagu waan ku faraxna wad u jeedaan maanta gacmahan isaysana waxaan ka soo tagnay saaka dhuusam reeb waxaan soo marnay xanan buuro waxaan marnay laama raqas waxaan marnay qalanqalle waxaan tagnay olol waxaan marnay sangooye hadda waxaan maraynaa dareemo qoryo waxaan u soconnaa bahol waxaan ka sii aadi doonaa dhuusam reeb intaas wax dhibaato oo ka jira lama arko dadkii walaalaha ahay ee xabadda isku ridi jiray gacmaha isaystaan geelooday wada maalayaan waxay ka qoomameynayaan dadkii ay bikhayr xaq ku dileen waxay ka tashanayaan mar dambe inaysan ku soo laaban dhibaatadii waxaan uga faa'iideysanayaa duubitaankan maanta aan meeshaan taaganahay dadka arki doona ama dhageysanaya na maqli doona ee walaalaheena ee qurba joogta oo ama xildhibaan leh ama wasiir leh ama dibadaba jiro dadka mataqan ganacsatada ah dadkii walaalaha ee meeshaas ku baaba'ay in ay si gaar ah u soo fiiriyaan dadkii agoomaha ahay ee dadkii naga baaba'ay ay ka tageen si uu uga go'o xanuunkii iyo dhibaatadii soo martay aad iyo aad u mahadsantiin mahad celinta iyo arinta laga soo sheekeeyay waxaan la qabaa saaxiibada iga horeeyay war ma dhimana hora loo yiri waxaan kaliya oo aan rabaa inaan ku daro hawsha la soo qabtay ee quruxda badan iyo midda dhiman runtii waxaa badan midda dhiman waxaan aad u codsanaynaa inaan iskala qayb qaadano inta dhiman dhamaystirkeeda wanaaga iyo iskaashiga iyo waxqabadka dhammaan waan ka mahad celinaynaa ilaahayna ajar badan idinka siiyo intii arintan ka soo shaqaysay dhammaantood mahad gaar ayaan u celinayaa wixii la soo qabtay iyo waxna hor yaala dhammaan ikhtiyaartii iga horeysay ka wad bixisay aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulilah mahad celinta waxaan la qabaa saaxiibaday iyo taariikhdii iyo waqtigii dheeray aan soo marnay walaalayaal nabadda waxay leedahay wanaag sida dhibka iyo colaaddu ay u leedahay khasaare bil ka hor deegaanada aan soo marnay waxay ahaayeen kuwa qaraab ah kuwa aan qofina joogin kuwa aan marka la marayo yaasiinka lagu maro maantana waa aragteen sidaad ka daawateen websaydyada iyo telefishinada sidaan indhahana ku soo aragnay waa kuwa lagu soo laabanayo waa kuwa nolol cusub ka bilaabatay waa kuwa ganacsiga ka furmay waa kuwa dugsidii iyo ardadii la kala fasaxay oo macallimiintu ka carareen ay u soo laabteen waa kuwa quraamadii iyo kitaabadii masaajidka ay dib uga bilowdeen nabadda geedahan iyo dhirtan aad u jeedaan bil ka hor waxay ahaayeen meelan ishaadu ay arki karin oo abaar ah oo aan raxmadda ilaahay ka tagtay ahayd waayo dhiig iyo colaad sakeeya ka socday maantana waa u jeedaan indhihiina macallina naqa waliba roob baada ayaa daruurta ayaa lagu gaaf wareegaysa saakasaan u soo baxnay wax ma aynan arkin qorrax ah daruur ayaa naaraysay roob baada ayaa shuuc iyo neecaw wanaagsan waana nabadda iyo fafaalaheeda ayaa weeyaan marka walaalayaal nabadda naas la nuuga leh dhibaatadu iyo colaadu qax iyo burbur iyo oon iyo xoolo la'aan iyo maal la'aan iyo diin la'aan iyo dad la'aan ay leedahay halka nabaddu ay ka leedahay raxmad iyo istiqaamo iyo kobac iyo isu imaatin iyo isu soo hilow iyo walaalnimo iyo walaalayaal marka alxamdulilah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ilaahay ha noo waariyo waana fursaddan uga faa'iidaysanaya dhammaan deegaanka aan joogno dadkana ku xeeran
waxaan ka codsanaynaa sida ay ayaga uga soo go'day ee ay u qaateen nabadda inay u hirgeliyaan isu xaq dhowraan isugu hiiliyaan isugu soo walaaloobaan isugu soo hoyadaan gacmaha isu qabsadaan intaasaan ku soo gabagabaynaa وقد قال الله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن علمي هاتان ان ku wacdiye ma aqaan maadaama magacayga la sheegan oo kalimeetooyinka aan insha Allah waa faa'iideysana marka koowaad waxaan isu dardaarmaynaa Ilaahay cabsidiisa dad muslimiin ah haday meel isugu yimaadaan waa laga maarmaan ayagoo muuqaalkooda iyo midabkooda uu islaam yahay xushmad iyo akhlaaqi ay ka muuqato haddana inay isu dardaarmaan oo Ilaahay cabsidiisa ay xasuusiyaan waa laga maarmaan qofku markuu ku yiraahdo Ilaahay ka baq wacdi kuma dhimana wax walba lagu sheegi lahay ayaday ku dhanta haday ahaa lahayd ilaalinta qofka waxyaabaha cirdigiisa iyo sharaftiisa haday ahaa lahayd xuquuqda qofku uu leeyahay haday ahaa lahayd nabadgelyadiisa haday ahaa lahayd waxyaabaha kale ee ku saabsan noloshiisa waxa laga maarmaan ah qofka horta marka koowaad inuu Ilaahay cabsidiisa qalbigiisa geliyo markii Ilaahay oo asagu ka baqo oo taqwada Ilaahay uu ilaaliyo oo Ilaahay uu xasuusto uu siraado horta marka koowaad yaa ku abuuray Ilaahay baa ku abuuray jawaabta ku soo baxaysa ay tahay marka labaadna haduu yiraahdo yaa abuuray makhluuqa adiga kula nool waxa u soo baxaysa mar walba hal jawaab shay walba oo uu eego waxa uga soo baxaysa Ilaahay subhanahu cadamadiisa iyo jalaalkiisa wuxuu qofku markaas ogaana cidda asaga ka weyn ee awoodda u leh inuu ama wax jiran noqdo ama oo waxaan jirin oo noqdo cidda kaliya oo samayn karta inay Ilaahay tahay taasoo qofku xasuusana markuu intaas qalbigiisa ku soo xaadiriyana wax walba waxay u noqonayaan inuu Ilaahay u daayo laanahu Ilaahay abuurista shaygan oo abuuray xigmada uu abuuray adiga la iskama ka abuurin xigmada lagu abuuray la ilaahay subhanahu wa ta'ala yahay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun insi iyo jinniba waxaan u abuurnay cabsida Ilaahay inay caabudaan oo cibaadaan u abuurnay cibaadaduna ayada waxay tahay midda kaliya oo ka reebaysa wax kasta oo xumaata keeni kara haddii qofku Ilaahay mar walba kalaamkiisa xasuusto Ilaahay dariiqa uu amray uu qaato waxa uu ka reebay uu ka haro waa midda kaliya oo qofku noloshiisana uu ku hagaagayo akhlaaqiyadkiisa iyo adabtiisa iyo sida bulshada uu la joogo iyo xataa xayawaanaadka uu la nool yahay soo u dhowri lahaa uga soo baxaysa laakiin haddii u muuqato inuu xayawaankaani waxba uusan ahayn bulshada uu la nool yahay waxba aysan ahayn deegaanku ku nool yahay uusan waxba ka soo qaadin waxa u muuqanaya xooluhu marka ay meel ku nool yihiin oo deegaan ay ku nool yihiin ayagaaba garaad laho is yiraahda meeshan waxaad cunto hadad ka weyso meel kale oo wax aad ka cunto raadso ayagaaba is yiraahda qofkii marka nooc xayawaankaas kamida haddana aan garanaynin dibka meesha ka uga iman kara ayuu noqonayaa munaasabaadka maanta oo jimcaha aan u soo tagnay bisha barakaysan fadligeeda aan u soo tagnay inaan islaaxii la waday ee bulshada deegaamadan degta laga dhex waday gaar ahaan beesha Yabardhoolka Ceel laga dhex waday in ay bal axwaashii la unkay sida ay tahay ayaan u soo baxnay
wax kalena ma ahayna waa islaax bayna annaas islaax bayna annaas laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas shir la isugu yimaadee meel lagu wada koodo wax ay khayrahu leeyahay ma lahan ilaa 3 arrimoodoo laga soo reebay maahane sadaqo lala baxo oo in dadka la isamro la yiraahdo sadaqada lala baxo dadka masaakiinta waxa la siiyo xoolaha haysta sadaqada kala bax iyo annahyu 'anil munkar iyo al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar waxyaabihii guud ahaan la iska wacyi gelinayay inay tahay al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar waxa wanaagsan oo la isu sheego iyo xumaatado la iska reebo waana taqwada Ilaahay bay ku dhex jirtaa markii lagu yiraahdo Ilaahay ka baqa waxay tahay al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar waxa xun iska daa waxa fiican qaado waxa Ilaahay ku amray qaado waxa Ilaahay ka reebanay ka har aw islaaxin bayna annaas dadka oo markaa islaax laga dhex sameeyo islaaxaas wax walba ku suurta galay nolosha bini'aadamka dunidan ku nool kasta nooc kasta uu yahay noloshiisa ku hagaagaysa waad aragteen colaadi inaysan wax ay galaafatay dhibaataysan maahane inaysan waxba soo kordhinayn waxa leeyahay nusqaana soo galaysa markii dhibaato ka dhacdo nusqaan diimeed mid maal mid nafeed intaba waa ay leedahay ilaahayna awlo hore u sheegayo bulsho meel ku nool in la isku imtixaanayo iyaga hore loo sheegay wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-juu'i wan-naqsi min al-amwal wal-anfusi wath-thamaraat wa bashir as-saabiriin waxa leeyahay ilaahay waa idin imtixaana imtixaanku idinku ridayana waxa kamid ah in bulshada laga nusqaamiyo xoolihii laga nusqaamiyo naftoodii nusqaani gasho waayo naftii way dhimanaysaa xoolihii markay waayaan waxay cunaan oo colaadi kala dhex gashana ama adduunkay u kala fakanayaan ama way baaba'ayaan sidoo kale thimaartii dhulka laga heli lahaa kulli la heli maayo laakiin Ilaahay wuxuu yiraahdaa bashir saabiriin inta ku sabarta dhibaatadaas Ilaahay xaqiisa intay u daayaan yiraahdaa Ilaahu naga qaad kuwaas Ilaahay oo waxay doonayaan oo siinaya talo waa mahadsantihiin annagu ma ahin dad hadda barasho cusub u baahan waa taqaanaan intaan dhammaantood waa bahda dhowr kace waa dhalinyaradii iyo waxgaradkii fududeynta howlihii nabadeynta socday raggii fududeyn jiray oo isku dhabar jabiyay inay howlahaas hagaagaan Ilaahayna ku guuleeyay annaga iyo adinkoo wada jirnay Ilaahay nagu wada guuleeyay inaan nabadda qaadano waa raggaas waa raggan hebel hadaa rabtaan waa leeyahay bar hadii kale waa raggii dhammaan waa yar rakaca annagu waxaanu ka nimid Dhuusamareeb saakay Dhuusamareeb ka soo tagnay waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Xana Buuro waxaan soo aragnay gudoomiyihii ku-xigeenkii degmada iyo shacabkii deganaa waa soo aragnay guddigii qayb kamid ah waa soo aragnay ciidankii meesha joogay oo amniga sugay waa soo aragnay dhammaantood waxaan isla qaadanay munaaqasho aan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa isla fahamnay waxaan soo marnay olol waxaan soo marnay Sangooye ujeedkanaga iyo socodkanagu wuxuu yahayna waa idin sheegaynaa hadda waxaan joognaa Bohol oo 4 meelood soo marnay kii ugu dambeeyay ujeedka socodkanaguna wuxuu yahay marka koobaad waxaan nahay inaan ogaano sida dhaqangalka nabadii u dhaqan gashay iyo dadku waxay ka qabaan hadii jiraan wax culaysa hadii la maqlay hadii barin laga hadlay hadii geeda laga hadlay hadii xaaluf laga hadlay dhammaan wax kasta culays oo jira inaan wax ka ogaano waa rabnaa marka kale waxaan u nimid inaan keeno dukumiinti aan lagu soo qoray shuruucdii qaban lahayd xaalufinta dhirta ama shidida dhuxusha oo ay soo magacaabeen oo ay soo saxiixeen dhaqanka iyo war dhowr ka dhamaantiis dhaqanku way soo saxiixeen dhaqanku way soo saxiixeen maamulkana waa loo geeyay arintaas waa arin fariisatay oo nagaatay waxa kale oo wadnaa magacyadii iyo sharci hoosaadkii guddigii
loo bixiyo guddiga dhaqanka guddiga amniga iyo ilaalinta bay'ada guddiga amniga iyo ilaalinta bay'ada oo dhowr iyo 20 xubnooda ilaa 21 xubnooda iyagana waa wada shuruucdoodii waxaan rabnaa marka inagu dad sharci ahaan si ahaan u dhisanaanahay gudoomiye ku xigeen wax walba leh guddiga amniga iyo ilaalinta bay'aduna sidoo kale u dhisan yahay shuruucdiisina waa wadnaa waxa hadda aan raadinayno markaan ugu muhiimsan oo rabnaa waxay tahay inaan shuruucdiina dhiibno warbixinta deegaankana inaan helnaan rabnaa marka waxaan ka rabnaa gudoomiye cali warbixinta deegaanka iyo waxa jira iyo sida culaysku yahay inaan helno dhammaan sida aad noogu timideen waan idin salaamaynaa horta arrimaha aad noogu timideen dhammaantoodna waa soo dhawaynaynaa sidii hore ay u socdeenna waa soo dhawaynaynay sida hadda ay u socdaanna waa soo dhawaynaynaa hadda maalin dhow baa meeshaana loogu yimid arrimihiina loogu yimid si wanaagsan ayay u dhaceen hadba tii timaadbana sidii ay tahay inaan la soconaan rabnaa kulli waxaa la wadaa taxadar iyo ammaankii yacni sidii maaragtay kasii shaqayntiisii iyo sii qurxintiis iyo howlahaasaa la wadaa nin kastoo socdaa saasoo wadaa annaguna sida aan u joogno meeshaan sida aan horeba u qaadanaan uga sii wadnaa uga shaqaynaynaa sugayna wixii kaloo noogu yimaad keliya xoogaa waxaa yacni maaragtaa si nagu ah ciddii sidii waagii hore ay u kala guurtay weli u kala maqanta abaarno hadda sooma rarin awalna dadku yani xoogaa buu kala sakada sideedii meeshooda u joogeen naqay uga heleen waxaan jeclaalay inay inta soo guuraan midkaana la degaan oon ceelka wada degno oo magaalada guryahooda ka soo degaan oo yacni maaragtaa ay ceelka dhinacooda ka cabaan oo barintii ay degi jireen oo kale ay degaan oo noo yimaadaan waa jeclaalayn haddase waa naga maqan yihiin weli waxaan u malaynaya cudur noogaa maqna waxay ku maqan yihiin fursadda jirta awgeed dadku awalna yacni maaragtaa abaar ma joogin layskuma ilaa hala rarana lama dhihin sidaas inay ku maqan yihiin aan qiyaasaynaa aysan wax cudur oo kale ku maqnayn haddii aan ku laabto midda yacni maaragtaa aad noo sheegteen raggii guddiga ahaa oo la dhisay oo guddiga nabadgelyada ahaa hadda raggaa nagala jooga raggii kale waa maqan yahay haddii inta loo dhisaa tiro badneed ilaa gees ka geesaa loo dhisay qolaba raggaa lagu ogaay oo yacni meeshaas lagu ogaa raggii lagu ogaa meeshaan ayaan idiin dhiibaynaa ninka la yidhaahdo ninka cabdinaasira yaa ka mid ah oo raggii ka jooga oo nagala jooga raggii kale wuu maqan yahay isagaa yacni maaragtaa raggii guddiga ahay oo guddiga nabadgelyada ahay ka jooga isagaan idinku wareeji doonaa insha allahu tacaala waxaan kaloo idiin sheegaynaa arrimihii laga ballamay oo laga ballamay midii nabadda way hagaagtay si wanaagsanay u socotaa laakiin midii xaalufinta oo dhirta la xaalufinaya ahayd ilaa ay hadda wax laga qabtay male kolley shuruucdeedii waa noo soo socotaa waana naloo sheegay inay noo soo socoto weli wax na soo gaaray hadda ma hayno dhirtiina kolley mandhaa kolley sidii hawsha ugu socotaa arrintaasu saas weeye sidaasay u dhacday ku soo dhowaada bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina nabi sal slim waxaanu salaamaynaa dhammaan intiina noo timid oo waftigiinaan guddiga oo socday oo nabadgelyada ka shaqaynahayay oo ahaa guddigii fududaynta iyo intii kaleoo khiyaaraho joogta culummo iyo dhallinyaro iyo gabdho intaba waanu salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waanu leenaha salaam bacdigeed nabadgelyadii lagu ballamay beesha yabar dhowra kace ama saree bilaal intaanu ka warhayno wax dhiba oo dhacayna maanaan maqal wax shidaa hadda ka taaganna ma jiraan waxaan ognahay anagu deegaankan hadda anugu aan joogay iyo intii guddigu ka shaqaynahayaba wax shidaa inaba la ekaatee oo dib u dhacay ama hadda laga xuro qabo ma ay jiraan nabadgelyadaas sidii ilaahay oo u idmay ayay u jirtaa wax carqaladaho gaarana ma jiraan sidaasaan intaan ognahay ka warhaynaa dhirta iyo deegaanka haddii la yidhaahdo de waa laisu sheegay in wax laga qaban doono tallaabo laga qaadi doono laakiin hadda wax laga qabtay ma jiraan jaraddii iyo dhibaatadiina way ku socotaa
amnigii wax ka qaban lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaana waxaa laga sugayey amnigana dee maaragtay in loola tago wixii lagu qaban lahaana adinkaa laynka sugayey ayadana waa sidaas marka ilaahay nabaddii islaaxii lagu ballamana sidoodii weeye dadka deegaanka hadda doobiye cali uu ka hadlayo yidhi kuma soo gurinna hadda qof ratigeeda la soo rarayay awal baysan jirin waa lagu ballamay in la soo guro laysu yimaado qofkii maqan waxay ila tahay dhibaato kuma maqna waa dan xilliga isaga uu ratigiisa soo raran lahaa ama gaarigiisa uu ku soo guuri lahaa ayaa dib jirta annagu maanan dareemin wax dhiba in nabaha la akaatee lagu kala maqan yahay marka alxamdulilaahi ayaduna saasay ahaanaysaa waynu soo dhaweynaynaa 410 qur-aanka kariimka barakadiisa aan ku soo dhaweynaynaa walaalayaal soo dhawaada nabaduna waa sidii lagu ballamay assalaamu calaykum waraxmatullaah ayahow ilaahay wixii aan soo aragnay ilaahay naga baxshaa mahadda iska leh intaanu inay soo wada fadhiisato oo qalbigooda isku meel yahay ilaahay qadaray baa mahadda iska leh mahadda labaad waxaa iska leh intii ku hawshay oo ama maqan ama joogta waxaan leenahay ha maqnaadayna soo joogeene oo sababtaas ilaahay uga dhigay ilaahay isagaa soo waday laakiin sababta uga dhigay ajir iyo xasan dheeri allah siinaan leh intaa ka bacdi dadkan warkii hore oo xanan buuro dhacay kii olol baa dhacay xanan buuro laba goor kii ahaa dhacay wareegtadii aad socoteen kii ahay baa dhacay dadkaanu waa ka caafimaadsan yahay aad buu uga caafimaadsan yahay anaa waxaa igu jiray hal qodob oo maskaxdaydu inay qaban weysay iyo inuu maxaa la yidhaahdaa uusan dhicin aan kala oqoo waayo shaki geliyey aanna isleeyahay armaan laga maarmi waayaa awsana fiicnaan dhalin waxaa weeye wax foolxumaa la soo maray wixii foolxumaa oo la soo maray in lagu sheekeeyo ama lagu kaftamo ama la isku xifaaleeyo agtayda barkumataal waaqay go'aamadii la gaaray oo ama la hirgeliyey ama maxaa la diiwaanyada lagu qoray inaysan anigu ma aanan maqal haatan ku jireena ma aqaan waxayse anigu aan dareensanahay inay wax xumaan dhali kara inay tahay haddii ama la isku xifaaleeyo ama lagu kaftamo ama laguba hadlaba foolxumadii ilaahay naga soo mootiyey wax ku saabsan in lagu hadlo anigu waxaan jeclaa lahaa arrintaas haddii go'aan laga gaarina inaan maxaa la deeqsiyo aniga maqneed haddaan go'aan laga gaarin aad ku darsataan hadallada aad wadaan raggeena waftiga aniga ma jeclaysanayo in lagu sheekeeyo xumaan laga soo gudbay samaan in lagu sheekeeyo waa jecla marka intaas horta igu cardaneed wax kalena ima hayaan intaan baan ka mid ahay caafimaad baan qabnaa walaalaheen meel aan ka doonno awalan la'ayn walaalaha isdilay meel aan caafimaad uga doonno allihii weynaa oo waaxid ahaa oo noo soo dejiyaana mahadda iskale adinkana haddee horaan idinkugu duceeyo waxaan ajir iyo xasan allah idin siiyo intiinan iyo intii kaleba waana nin baa wuxuu yidhi walle aabasaan u dagaalay asiir waa intaas idula dhowaataa wy inaadnaan ka cajisin oo reer walba berinkuu degi jiray degmadiisa ogaataan oo aad wax dhegdhegaysaan ood kaftanka ogaataan ood kaska ogaataan ood xaaladda la daristaan waa wax loo baahan yahay haddii maalintii hore oo xanan buuro go'aamada lagu gaadhay oo laysku wacyigeliyey lagu kala tago dad wax aysan qabin helayaa jira oo ku helay wareegtadiinna iyo wacyigelintiinna oo aan yarayn oo rag leh oo dumar leh oo wax kasta leh ayaa jira waa ku mahadsantihiin intii aad isdhahdeen heshiiskii dhacay haddana sii qiira geliya oo sii wada anugu intaas baan inaan hadalka uga baxan rabaa nabadda dadku si isku mid ay u soo dhoweeyeen annagana waa uu noo muuqday wax culays uu kama jirin alxamdulilah waxaa jira marka hal qodob nagu soo laalaabanayay oo qodobka ah dhirta gooynta dhirta annaguna aan dukumentigeedii haynay oo keennay laakiin xoogaa
laakiin xoogaa wax yar ku jireen oo ah sharciyaddii markaan keennay dadku ayaku waxa inay gacantooda iskaga qabanayaan iyo inay maamul la tiiganayaan oo la leeyahay hebel la xiriira laftigood sababtoo culayska soo laabana waxa waaye wixii kale waa naga dhammaadeen dhirta goynteedu culays miisaan nagu soo laabtay annaga waraaqihii aan gidibna iyo shuruucdii laakiin ma aanaa dhihin hebel la xiriira amni la xiriira nidaamkaas sameeya siiqadaas weli annaga laftigeena waa naga dhimantaa marka waxaan codsanaa taas in dadka horta loo caddeeyo waa qodobka ugu culayska badan oo dadku muujinayaan qodobkii nabadda waa fariistay waa aad iyo aad ugu mahadsan yihiin muuqaalkeeduna waa muuqdaa annaguna waa soo aragnay ayaguna markhaati ka noqdeen laakiin qodobka dhirta iyo dhuxusha waxaa la rabaa in la yidhaahdo sababtoo adeegaanadii baxaya sida nolol sheega meel walba annagu inaan nidhaahno waraaqdii waan dhiibnay laakiin in la yidhahdo meel hebla la xiriira taliska la xiriira hebel la xiriira guddiga hebel la soo xiriira inaan taas nidhaahno ku darno intaasaan waana mahadsantiin dhammaan horta waxaan salaamaynaa dhallinyarada iyo odayaasha si waxaa noo soo dhoweeyey haddana noo warbixiyey oo deegaankii qaabkii u ahay iyo nabaddiisii nooga warbixiyey waa salaamaynaa waana u mahad celinaynaa intaas ka bacdi markii aan ku hormaro wixii dhacay oo xumaay in laga sheekeeyo ninka la yidhaha waxaan ugu baraarujiyey adeer cabdi faarax khayr allah siiyo in alla intii ama hadda kahor ku sheekayday ama rabtay inay ku sheekaydo waxaan leenahay sideedaba wixii xumaay oo laga soo gudbay sidaa nabadda looga qaatay in looga gudbaa la rabaa qof dambe oo naga mid ah yowsan ku sheekaynin saasaan yeelnay iyo taasaa dhacday iyo ninka la yidhaahdo maxaa qofkii xataa wax lagu tuhmayey in barnaamijyada noocaas oo kale lagala hadlo sidii aan uga gudubnay colaaddii warka xunna aan uga gudubno ninka yarkan dhallinyarada magaciisa maxamedna waxaan ka raali gelinaynaa codkii noocaas ahay waa aan ka raali gelinaynaa adeer cabdi yaana nagu baraarujiyey arrimaha noocaas oo kale inaan hadda kabacdi laga hadlin sidaas aan uga gudubno qof dambe oo ku sheekeeya hadduu beled jooga iyo hadduu baadiye jooga yaan lagu kaftamin taas waa intaas midda kale nabaddii waa noo hirgashay ilaahay ha noo siyaadiyo saakay dhul badanaan soo marnay sida nabadda uga muuqata lama sheegi karo xaran buuro olol sangooye boholo hadda aan joogno dhul kale waa sii mari doonaa haddii alla yidhaahdo nabaddu say uga muuqato lama malay karo ilaaha ku mahadsan waxaan kale u mahad celinaynaa nabadda dadna waa dadka marka hore ku talagalo bilowgeeda dadna waa dadkii inta loo keenay qaatay wallaahi waxaa ammaan weyn mudan ninkii inta loo keenay qaatay haddana inuu hirgeliyo marada u duubtay ninkaas baalkiisa raggaas aadan ugu mahad celinaynaa odayaasha iyo dhallinyarada intaba waa leeyihiin iyo guddigii aadan ugu mahad celinaynaa adeer cabdi faarax weliba aadan haddana ugu sii mahad celinaynaa goobo badan oo uu ka hadlay waxyaaba badan oo taataabtay waxaa ka mid ahayd oo uu yidhi mooryaan iyo malakumowda hadda kahor naga adeegay ilaahay laga qabto uu yidhi idaacadaha gasho midaasu adeer aadan ugu mahad celinaynaa ku soo dhowaada qof walbaa nabadda inuu ka shaqeeyaa la rabaa muhiimadda weyn oo aan rabay inaan ka hadlo waxay ahayd codkaas adeer ow sheegay inaan qofna ku sheekayn aan lagu faanin aan lagula kaftamin qofna